haddaannu nahay degmada Damalaxagare waxaannu maanta halka ku soo dhowaynaynaa wafdida ballaadhan ee nooga timi Puntland wasiirada uu hogaaminayo wasiirka tacliinta sare Cabdullaahi Maxamed Xasan wasiir ku-xigeenada ciidanka iyo saraakiisha nin walba teetalkiisaannu ku salaamaynaa waxaannu idiin sheegaynaa waxaad timaadeen mandaqadiinnii waxaa u timaadeen dadkiinnii waddanku waa nabadgelyo wax dhibaato ah oo ka jira ma jiraan waad aragtaan hooyooyinka carruuraha odayaasha waayeelka ardayda intuba waxay idinku soo dhowaynayaan gacmo furan halkani waa Damalaxagare galab maantadan oo aanu Damalaxagare joogno waxaannu halka ku soo dhowaynaynaa wafdida oo wasiirka uu watay waxbarashada Puntland iyo ciidamada la socday iyo saraakiisha ku soo dhowaynaynaa waxaanu leenahay soo dhowaada madaxda la socota dhammaan wafdiga waanu soo dhowaynaynaa halkan waxa nabadgelyo ka jirta imtixaanadii si fiican ay u socdaan anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Damalaxagare imtixaanaadkii shahaadiga ahaa sidii loogu talagalay ay u socdaan si degan wanaagsan nidaamsan ay u socdaan maanta waxaa noo dhammaaday imtixaankii fasalka 8aad waxaa noo hadhay oo weli socda imtixaankii dugsiga sare ee fasalada foonfoorada halkan waxay xarun ahayd oo ku geliyey oo isugu yimi iskuulada tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku adkaynayaa nabadgelyo dhulka idinkaa leh gabdhahaa leh raggaa leh dhallinyaradaa leh odayaashaa leh idinkaa u hadhaya xoogaa nin la siiyaa waxba ma tarayo nin qof walbi shalay bay ahayd meeshaan ku dhimanaya inaan cid uga baqo suuragal ma aad iyo aad boqolkiiba 500 baa mahadsan tihiin deedan oran maayo Damalaxagare way igu soo dhawaynaysaan laakiinse Damalaxagare waa wada leenahay waa isku soo wada dhawaynaynaa marka idinkuna xilligaas aad aragtaan oo la joogo waqtigaas 3 iyo 4 oo salaadii casar ma malaynayo in hadda laga baxay ama laguba jiro iyo kulaylahaas inkastoo kulaylku aanu idhibayn waxaan aad iyo aad hambalyo iyo wanaag iyo dawladnimo idinka wadnaa dawladda Puntland ee uu hogaaminayo Dr. Siciid Cabdullaahi Deni booqashadan aan hadda ku marayno Damalaxagare gobolka intiisa kale aan ku soo maray marka laga soo bilaabo dhinaca baran xoogaa carqaladii way dhacday maanta runtii xaqiiqadii meesha la yiraahdo Carmale waxay u egtahay meel la haysto waa la qabsaday hadaa runta doonaysaan Carmale waa la qabsaday kuwii joogay ee u shaqayn jiray ayaa u qabtay cadawgii aynu ka ilaalinaynay ee aad ogeydeen tan iyo tooba iyo dalka wixii ka dhacay ee ina dhex maray aad ogeydeen baa maanta lagu soo dhaweeyay anigoo Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo waftigeygina waa naloo diiday inaan galo Carmale inaan galo waa naloo diiday inaan galo bal Carmale oo maanta lay diiday inaan galo oo aan booqdo ardayda anigu aan wasiirka u ahay imtixaankeedii oo ahayd ujeedada kaliya aanu imi maxaad u malaynaysaan maxaa inoo yaalla waxa inoo yaalla maxay yihiin baad u malaynaysaa waxaan isleenahay tii ka dhacday Carmale iyadoo 500 waxa bedeli doonta Damalaxagare insha Allah Damalaxagare bedelaysa runtii laba mid bay noo joogsatay ciidan nagu filan waa wadanay maskax iyo aqli nagu filan waa wadanay waxaanu isbarbar dhignay labo meeshaas in dagaal lagu hoobtaa uu ka dhaco oo maatada iyo carruurta iyo dadkaas uu ku dhaco